wacan daawadayaal halkani waa janaalkeena runta qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona nabad iyo nolol oo wariye ka dhigaysa xildhibaan si uu u hor istaago Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya muxuu kala hadlay safaaradda Mareykanka oo cadeysay sababta safiirka cusub uu aqoonsiga ugu gudbinayn doono madaxweyne Farmaajo qodobadaasi ayaan daawadayaal warkeena janaalkeena runta idinkugu soo gudbin doonaa haddaba daawada haddii aad janaalka runta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya nabadii nolol ayaa wariye ka dhigaysa xildhibaan si uu hor istaago Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame doorashada golaha shacabka ayaa sanadkan wajiyo cusub ka soo muuqan doonaan xilli kuraasta boob lagu sameynayo meelaha qaar meelo badan ayaa waxaa kuraas la sheegayaa in lagu boobay iyadoona tan ay u muuqanayso dhibaatooyinka doorashooyinka inay weli ay taagan yihiin Hirshabeelle oo haatan la sheegayo in ay dhibaato ka bilaabatay isla markaana la tilmaamayo in xaalad adag ay jirto haddana waxaa jira culaysyo kala duwan oo haysta qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedada oo ay fila Soomaaliya ay saareyso hadda nabad iyo nolol ayaa dib boorka isaga jafaysa iyadoona dhaqaale badan ay ku bixinaysa sidii dad gaar ah ay wadato xildhibaano ay ugu soo saaran lahayd Xasan Sheekh Axmed Cadde wariye caan ah oo Soomaali ah ayaa markaan u taagan kursiga beeshiisa ee Hob 138 kaasi oo doorashadiisa ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb waa saxaafi Xasan Cadde taageero weyn ayuu ka haystaa fila Soomaali isagoona kulamo kala duwan ka wada gudaha magaalada Muqdisho isla markaana hadda madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor lagu wargeliyay in uu Xasan Cadde kursigiisa uusan shaki gelin tanina waxay u muuqataa in culeysyada kala duwan ee haatan haysta ay noqon karto madaxda maamul goboleedada kuwa sii taagan iyadoona madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor la sheegayo in uu talaabooyinkan uu haatan uu qaadayo uu ku muujinayo taageerida Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu hayo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa hore waxaa loo sheegay inuu ka mid yahay hogaamiyaasha dhibaatooyinka kale ka wada gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gebi ahaanba dalka lacaga fara badan ayaa dowladda Farmaajo waxay ku bixinaysaa in dhammaanba ay ka taklusiso shakhsiyaadka ka soo horjeeda tanina waxay u muuqanaysaa caqabadaha adag ee bulshada qeybaheeda kala duwan haysta hase ahaatee xaaladda adag ee haatan jirta ayaa waxay u muuqanaysaa in maalinta ka dambeysa ay kasii darayso haddii xaalku sidaan sii ahaado madaxda maamul goboleedada ayaa waxa ay dhibaatooyin fara badan ay kala kulmi doonaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kala duwan ee dalka dhanka kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu la kulmay safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan waxa uu la qaatay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Tina Tinilman kulanka madaxweyne Xasan uu la yeeshay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ayaa uga wada hadleen marxaladaha kala guurka ee dalka uu ku jiray arrimaha doorashooyinka iyo taageerida dowladda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ay siinayso xilligan ayaa waxaa jira doorashooyinka baarlamaaniga ah iyadoona lagu wado in la soo gabagabeeyay 25 Febraayo sanadkan 2022 Ambassador Tina ayaa hore waxa uu sheegtay in ay kulamada ay la yeelanayso qaar ka mid ah midowga musharaxiinta ay si weyn uga hadlayso xaaladaha guud ee doorashooyinka iyo sida ay markasta looga hortagi lahaa xaaladaha kala duwan ee dalka Soomaaliya waqtiga kan uu ku jiro Ambassador Tina ayaa hore waxay u tilmaamatay in ay ka go'an tahay in ay mar waliba ay taageerto shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay ka hortagto xaaladaha adag ee haatan Soomaaliya ay geli karto wadamada caalamka ayaa loolan xoogan waxay ugu jiraan sidii u taageeri lahaayeen qaar ka mid ah midowga musharaxiinta ayaa haatan waxay doonayaan inay ka taklusiyaan kooxaha taageera Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo siyaasadda Soomaaliya ayaa haatan waxay u muuqanaysaa mid ay si weyn uga kala hadlayaan wadamada caalamku iyadoona wadamada caalamku la sheegayay in ay doonayaan inay wax waliba oo rajo ah ay rumeeyaan oo ku aadan xaaladaha guud ee doorashooyinka Soomaaliya
dhinaca kalena daawadayaal madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada tani caasimadda ah ee Muqdisho. Axmed Qoorqoor ayaa waxaa la sheegayaa in uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho isagoona kulamo kala duwan ku yeelanaya gudaha magaalada Muqdisho isla markaana beeraha kala duwan ee dega Galmudug si gooni ah kulamo ula qaadanaya. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo si weyn uga soo horjeeda hanaan siyaasadeedkiisa qaar ka mid ah siyaasiyiinta dega Galmudug ayaa waxaa la sheegayaa in uu hadda uu hami weyn uu ka leeyahay in wax waliba laga gudbo kulamada kala duwan ee Muqdisho uu ka wada ayaa waxaa la sheegayaa in ay si weyn hami uga leeyahay madaxweynaha maamulka Galmudug in dhammaanba uu ka taqluusiyo siyaasiyiinta iyo sidoo kale kooxaha ka soo horjeeda. madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta haatan la sheegayo inay taageero cad ay u muujinayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. tanina waxay ka dhigan tahay culeysada siyaasadeed ee haatan dalka ka jira inay noqon karaan kuwo saameyn badan bulshada qeybaheeda kala duwan ku yeelanaya. dhanka kalena daawadayaal weli waxaa adag xaaladda ka jirta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in cabsi xoogan ay halkaasi ka jirto iyadoona doorashada laga cabsi qabo inay dib ay u dhacdo. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa hore waxa uu sheegay in ay wax walba oo ku aadan xaaladaha adag ee haatan jira laga gudbay inkastoo aysan u muuqan haddana Jenaraal Xuud iyo sidoo kale ciidamadiisa ayaa waxay yihiin kuwa rajooyin wanaagsan leh oo ku aadan sidii ay u guuleysan lahaayeen isla markaana ay kaga adkaan lahaayeen kooxaha sida weyn uga soo horjeeda Farmaajo. Jenaraal Xuud ayaa dhaqaale fara badan hadda filla Soomaaliya ka helaya inkastoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu kaliya uu ka yahay marqaati wax waliba uu haatan dalka ku jiro. inkastoo ra'iisul wasaaraha dalka uu haatan uu ku sugan yahay wadanka isku taga Imaaraadka Carabta isla markaana kulamo kala duwan oo la qaadanayo mas'uuliyiinta dowladda Imaaraadka Carabta isagoona ka dhaadhicinaya inay taageeraan qaar ka mid ah midowga musharaxiinta. tanina waxay u muuqanaysaa in doorashada Soomaaliya caqabada adag ay ka jiraan. ugu dambeyntiina Itoobiya jabhadda ka dagaalantay ee TPLF la yiraahdo waxaa wali la sheegayaa in ay haatan ay mar kale doonayaan in ay awoodda wadankaasi ay gacanta ay ku dhigaan. jabhadda ka dagaalanta wadanka Itoobiya ayaa waxa la sheegayaa in ay ka xuntahay wax waliba oo ka jira wadankaasi inkastoo caqabadaha adag ee haatan jira ay u muuqan karaan kuwa saameyn badan bulshada ku yeelanaya. bulshada ku nool wadanka Itoobiya ayaa waxaa la sheegayaa in dhammaantoodba ay noqonayaan kuwa saameyn badan ku yeelanaya xaaladaha adag ee haatan dalkaasi ka jira. dalka Itoobiya colaadda ka jirta ayaa waxaa la sheegayaa in wadamada caalamku ay si weyn ay u taageerayaan jabhadda ka dagaalamaysa wadankaasi. oramada iyo sidoo kale jabhadaha kale ee ka dagaalama wadanka Itoobiya ayaa haatan waxay doonayaan inay ka taqluusiyaan jabhadda TPLF la yiraahdo. TPLF dagaalka ee kula jirta ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu yahay mid saameyn badan ku yeeshay isu socodka guud ee wadankaasi iyadoona xaaladaha adag ee haatan ka jira wadanka Itoobiya ay u muuqanayaan kuwa saameyn badan ku yeelanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool wadankaasi. wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in dowladdu weli ay doonayso in ay wax waliba ay ku guuleysato isla markaana rajadeeda ah in ay guuleysato ay markan ay ku dadaalayso. mas-uuliyiinta wadanka Itoobiya ayaa waxaa la tilmaamay in ay hadda dhaqaale aruursi ugu dambeeyay ee wadaan kaasi ay ku doonayaan inay dhammaanba ka taqluusiyaan kooxaha ka soo horjeeda madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha wadankaasi Itoobiya. dhibaatooyinka ka jira wadanka Itoobiya ayaa waxay u muuqanayaan kuwa ka sii daraya maalinba maalinta ka dambeysa. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibada aan jecelnahay waanaga intaa. haddaba daawada haddii aad janaalkeena runta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala waadna mahadsantiin. nabadgelyo.